qoyskiisa waxay tacsidiisa ay dhigteen 4 bilood ka hor cidna kuma aysan fikirin inay dib u arki doonaan aabbaha carruurtiisa ku soo koriyay macalinimada balse maalin iyaga oo jawi kale ku jira ayay ka war heleen wiilkooda oo ka soo baxay halkii ay ku xabaaleen ama ay ku aaseen ninka aan ka hadlayo waa Maxamedul Jamaal dhacdadana waxay ka dhacday dalka Masar ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalka aan dhacdadaasi kaga hadlayno halkanina waa xog bile waa dhacdada toddobaadkan loogu hadalhaynta badnaa gudaha dalka Masar waxaana qoys ku noolaa xaafadda Kufrul Xasri ee gobolka Sharqiya ee waqooyiga magaalada Qaahira ay la kulmeen dhacdo aysan filayeen inay arki karayeen 4 bilood kadib qoyskani ayaa dib waxay u heleen wiilkooda Maxamed Jamaal oo 4 bilood ka hor ay aaseen maadaama ay meed ahaan ay uga samreen Maxamed ayna ku duugeen meel duleedka ka ah xaafadda ay ku noolaayeen oo ku taala waqooyiga magaalada Qaahira Maxamed wuxuu ahaa da'da 40aadka mid ku jira waxaana 4 bilood kadib la arkay isaga oo ku gaaf wareegaya qabuurihii xaafadda uu ka deganaa waqooyiga magaalada Qaahira halkaas oo lagu aasay muddo badan Maxamedul Jamaal waxa uu ku shaqaysanaya mihnada macalinimada oo waxa uu wax u ka dhigay xarumaha waxbarasho ee xaafadii uu deganaa wuxuu dhalay carruur balse waxa la sheegay inuu qabay xanuun dhanka maskaxda ah kaas oo marmar ku soo kici jiray marar badan waxaa Maxamed ku dhacday in xanuunkaani maskaxeed ee haya darteed inuu miir daboolmo taasi oo qoyska ku abuuri jirtay walwal iyo shaki ah inuu geeriyoodo wiilkooda sida dadka deegaanka ay warbaahinta u sheegeenna Maxamed dhacdadii ugu dambeysay ee la kulmay waxaa la sheegay in muddo 2 toddobaad ah uu xanuunkaasi la miir beelsanaa laakiin bishii January ee sanadkan 2020 qoyskiisa ayaa gabi ahaanba waxay waayeen halkii uu aaday Maxamedul Jamiil waxaana la sheegay in xanuunkii dhanka maskaxda uu ku soo kacay Maxamed kuma uusan soo laaban gurigiisa qoyskiisana waxay ku daaleen sidii ay u baadigoobayeen balse markii dambe 2 bilood kadib mid kamid ah qaraabada qoyska ayaa telefoon ka soo wacay reerka Maxamed kaas oo cisbitaal uu ka shaqeynaya la keenay ruux meydkiisa la garan waayo waxaana uu ka dalbaday qoyska in cisbitaalka ay yimaadaan si ay u hubiyaan kadib qoyskii ayaa ogaaday in wiilkooda uu yahay waxaana dib loogu sameeyay baaritaanka dhiigga hidisidaha ama DNA waxaana markii dambe la xaqiijiyay in wiilkooda uu yahay ugu dambeyntiina 22kii bishii Maars ee sanadkan 2020 ayaa Maxamed lagu aasay qabuuraha xaafadii uu ka deganaa duleedka magaalada Qaahira balse arrinta cajiib kale ayaa waxay tahay in isaga oo nool dib loo arkay Maxamedul Jamiil isaga oo meeraysanaya qabuurihii lagu aasay markii hore waxaa Maxamed arkay wiilal dhalinyaro ah oo damaashaad u socday dhamaadkii toddobaadkii hore waxaana ay geeyeen saldhiggii booliska ugu dhawaa si halkaasi baaritaano loogu sameeyo baaritaano dheer kadibna qoyskiisii ayuu dib ula midoobay Maxamed waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida qabriga uu kaga soo baxay balse waa mid ilaa haatan aan la ogeyn walow dadka deegaanka ay sheegeen inay arkayaan halkii Maxamed uu ku aasnaa oo laga dareemayo in ruuxii ku jiray uu ka soo baxay adiga maxaa dareemi lahayd haddii sidaani oo kale ay idinku dhacdo adiga iyo qoyskaada muuqaalkiina waa naga intaa aragtidaada xog bile qaybta hoose ka dhiibo mahadsanid